haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. waa idin salaamay. magacaygu waa cabdiraxmaan. weligay ma hilmaamayo taariikhdii igu dhacday 2019 xaflad ayaan dhiganaynay. xafladaasna waxaan u dhiganaynay 2018 oo dhammaata awgeed 2019 way bilaabanaysay. xafladii ayaan kusoo dahay maalinkaas 6 saac habeenimo ayaanu kusoo kala tagnay xafladii. markaan soo baxay waxaan arkay dad wadada xashiish ku cabayo. aniga aad ayaan u naxay. kadibna waxaan soo baxsaday moobilkayga, toosh ayaana ka daartay si aan wadada ugu iibsado. waan ogahay arrinkaas inay qalad ahayd, laga yaabana inay moobeelada iga xadaan, laakiin wadada ayaa mugdi ahayd, qaab kale aan ku mari karana maysan jirin. kadib moobilkayga ayaan wadada iska iibsanayay. xoogaa kadib waxaan maqlay qaylo. qayladayna si fiican ayaa u dhegaystay. qayladaas waxay ahayd gabar yar codkeeda. kadibna waxaan u soo orday meesha qaylada ay ka yaraysay, sababtoo waxaan ka baqayay gabartan yare in dadkan meesha xashiish ku cabayo ay waxyeelo u geystaan. markaan imaaday waxaan arkay gabar yar oo dhiig ka socdo. dhulka ayayna taalay, wayna oynaysay, laakiin iyada weli way nooleed. waxaana weydiiyey waxa iyada ku dhacay. waxay ii sheegtay in iyada lasoo afduubtay, xoogna lagu soo watay. hadday qaylisana waxaa lagu yidhi waan ku dilaynaa. kadibna way qaylisay, mindidii ayaa sidaas loogu duray. meeshaan ayayna igu tuureenay dhahday. hadda way ii soo socdaan, waxayna doonayaan mar labaad inay wadaan. laakiin aniga gabartii waa caawiyey, duudka ayaana kusoo qaaday, sababtoo ay iyada ma soco karin, dhiig ayaa ka socday. waxaan ula soo cararay gurigayga. waxaana hooyaday u sheegay in gabartan ay dhibaataysan tahay, cuntana ay siiso. cunto ayaa gabartii la siiyey. isla markii waxaan wargeliyey booliiska. waxaana u sheegay in gabarta meelshaas lagu afduubtay. booliiska markay meesha tageen waxay arkeen guri duq ah. gurigaas duqana waxay ku arkeen nin iyo naag oo la jarjaray, hilibkoodana cadcad loo gooyey, iyo dilaaygii oo meesha joogo. booliiskii dilaaygii way xirxireen. waxayna iisoo sheegeen in nin iyo naag ay meesha ku dhinteen. anigu waxaan ogaa ninkaas iyo naagtaas in ay ahaayeen gabarta hooyadeed iyo aabbaheed. ninkii xabsi ayaa la geliyey, waana la xiray, laakiin gabartii ayaa cid la soo istaagtay, sababtoo ah hooyadeed iyo aabbaheed si naxariis dara ayaa loo dilay. cid wadatayna maysan jirin, qof kasta wuu diiday. kadib hooyadii ayaan u sheegay in gabartan anaga aan wadano, anagana aan korino. hooyadii way iga ogolaatay, aniga ayaana gabartan soo waday. haddii aan gabartaas u imaan lahayn, run ahaantii dadkaasi si naxariis dara ayuu dili lahaayeen. fadlan fiidiyowga like saar. qisadan waxay igu dhacday 5 sano ka hor, anigoo 11 jir ah. subaxdii ayaa waxaa u soo baxay bannaanka aniga iyo walaalkayga iga yar si aan bannaanka ugu dheelno basketball. annagoo iska dheelayno ayaa waxaa aragnay nin wadada maraya. dadka si fudud ayay sababtoo ah bannaanka ayaa ku dheelaynay. waxaa aragnay labada nin oo luuq ku jiro oo annagana soo fiirinay, weliba dad cabtooy u eg oo aadna u wasaqaysan. annaga cabsi ayaana kashay, guriga ayaana soo galnay, daaqada ayaa ka fiirinay. waxaa aragnay inayba guriga noo soo galeen. mid ka mid ah ayaa guriga noo soo galay. hooyadeen ayaa u soo wacnay, waa u sheegnay. hooyadii way xanaaqday, way ku qalqaylisay. iga bax guriga ayay dhahday. kadib waxay gargaarka degdeg ah 911 booliiska. iyaga magu eka kuwa cabsaday. midkii xumaa oo wasaqda badnaa ayaa wuxuu galay maqaasiinka, wuxuuna soo baxshay mishiinta cooska lagu jarjaro.
anigoo la yaaban, hooyana la yaaban, ayaa hooyadii booliska wacday. kadib kii kale ayaa u imaaday. way isla hadleen, waxay ku hadlayeen ma fahmin aniga. ninkaana mishiinkii cooskii ayuu soo baxsaday. anigoo yaaban, howshaan waxay ku samey rabaan aan aqoon. marka hore gurigeen ayuu soo galay, labadooda ayaa isfiiriyeen. kadibna mishiinka ayuu soo baxay waana daaray. waa la yaabay, dadkan maxaa ka qaldan. wejigiisana aad ayuu u cabsi badnaa. haddaa la arko waa weji laga cabsanayo. mishiinka ayuu gediyey. aniga iyo hooyaday iyo wixii meesha walaalihii jooga waa wada cabsanay. kaamira ayay ka duulayeen walaashayda. wuu fadhiistay, ayuu qoorta iska jaray. kadib mishiintii iyadoo wareegsaysa ayuu qoorta u dhigtay. kadib sidii ayuu ku dhintay ninkii. anaga dham khalkhal iyo cabsi ayaana gashay. aniga ama kakax iyo cabsi ayaa igu dhacay. waxaan rumaysan waayay ninkan wuxuu sameeyey. ma waalan yahay, ma fiyuu yahay. wuxuu sameeyey ayaa fahmi waayay. kadib booliiska ayaa imaadeen. kadib hooyadii ayaa waxay tustay videogii ay ka duubtay markuu asigii isdilay. booliiskii ayaaba la yaabay. ninkii kale la socday ayaa xerig la xiray, iskartaa xirtay. xabsiga ayaana sidaas loogu taxaabay. aniga arrinkaasoo u dhacay muddo isbuuc ku dhow. ma bixin, iskool ma aadin. aniga dham waa qanacsanaa, sina waa igu jirtay. markastana waxaa ku qarwayay ninkii. mishiintana gurigeena ayay taalay, weliba anigoo aad u cabsanaya. fadlan subscribe, like, share, comment. insha allah si